وبركاته maanta waxaan joognaa North London Holloway waxaan la joognaa gudoomiyaha baraarujinta bahweynta banaadiriga UK Mr. Hassan Muridi ayaa midigtiga taagan bidixda waxaa iga taagan runtii gudoomiyaha South West Cabdullaahi Carab oo taqaanaan dadaalkiisii maanta maadaama aan nahay bulshada Soomaaliyeed maarta dadka mar walba oo carara waxaan jeclaanay walaalkeen Hassan Muridi inaan u imaano oo maarta asagana youthka iyo maarta meeshan u furay oo xafiiskan aan ku soo booqanay marka asaga ayaa idin sheegaya walaalkeena wuxuu noo qabtay fadal ku soo dhaw waana Hassan intaan ku dhiibin Cabdullaahi Carab gudoomiyahan u dhiibeenaa oo shaqadii aan qabanay maarta ku sheegaya adigana maarta booqashadaada maarta aad noo sheegaya waxaan ku soo booqanay gudoomiyaha Cabdullaahi Carab fadal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي ومفرح سنة مانتا ماشان أن جبنو وحافظة نورث لندن جارهان هولوي رود وحان قصوا بقنا يا أونمد دوميها بحوين تبنادر برارية بحوين تبنادر مدن حسن مريدي ورنتي مانت أنا جي السجا عمر سمالوين أن كولا قبلني شر مهم أو قصة سنة يونيكا يو جالين الصوماليات UK وهجمني عبد الله سلام الله شركة اسمها حكومة قال حسن هوينك دومي هو هوينك UK شركة اسمها حكومة كرشة في عني وحكرت مركا ما دام مركو شركة مادن وحنا عزومي دوميها بهوينتا بروريتا بنادر UK مدن حسن أو أنقصوا بوقنا حفيز كيسة آدي وفرح سنة هنا مانت نمانو وحنا يعني ورشقين yeelan doonaa annaga haddaan nahay South West-ga iyo North-ka maanta wixii ka dambeeyay waxay yeelan doonaan shaqayn fiican gacmo qabasho fiican maanta waa maalin weyn marka waxaan rabaa inuu iskaan baro mudane Hassan Muridi shaqadu hayo iyo waxa uu future-ka isla u shaqayn lahayn inuu isaga xoogaa noo faahfaahiyaan jeclaan lahayn mudane Hassan Muridi ku soo dhawaad saaxiibka tafadal Hassan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida aad arkaysaan oo aad dhammaantiina aad maqaati ka tihiin aniga waxaan ahay gudoomiyaha baraarujinta bahweynta banaadir ee UK maanta aadaan ugu faraxsannahay walaalahayga dhinacan wada jooga inay maanta xafiiskeena soo booqdaan maadaama aan ka soo noqonay shir oo aan wada lahayn unionka iyo annagoo dhan oo jaaliyadaha UK ee Somali diaspora isugu timid dhammaantooda ay ku soo dhammaatay jawi aad iyo aad afgaas buuxa oo aan maanta oo Soomaali aan filayo inay guul ku gaari doonto dalkan diaspora marka waa la socotaan in gudoomiyaha uu yahay Cabdullaahi Salaamullah iyo qaali Barwa oo gudoomiyaha habeenka ee dalka UK inay tahay diaspora saadarteedana waxaan maanta aan soo waday aan soo raacnay inaan xafiiskan imaano oo aan ugu sheego wax alla wixii bibi banaadir ay qabato iyo sida ay u shaqeyso waxaan bibi banaadir ay aad iyo aad xoog u saartay in aan wada shaqeyn buuxda oo kala go'aan ah duu ilaahay ka raal noqdo inaan isugu wada imaan doono oo aan ku wada shaqeyn doono Soomaali diaspora waxaan naga go'an in Soomaalida dhibaatada walaalaheena dhulkan ku haysto inaan ka saarno dawladda Ingiriiskana aan gacan mid ah Soomaali inaan ka yeelno ayaan special youth dhalinyarada inaan ka soo saarno xabsiyada inaan u istaagno masaakiinta iyo duqowda oo aan maanta waxba loo qabanaynin xataa daawooyinkooda si loo isticmaalo aan garanaynin waxyaalo badan aan isla afgaranay unionkana waxayna yiraahdeen awood ayaa idin siinaynaa inaan ku shaqeysaan arrintaasi waanu ku shaqaynaynaa insha Allah tan lamaadna waxaanu la kulmi doonaa ninkii hore ee laga qaaday jegada magaciisa la yiraahdo Nicholas Kay asna waa kulmi doonaa insha Allah waxaana naga filaysaan insha Allah jaalidaha UK sidaan wada sheegnay inay suxirnaan buuxda inay midnimo aan sameeyno xafiisna ay ka wada furtaan meel kasto xaafad kastaba ay Soomaali degan tahay taasoo ay gudoomiye ay u wada yihiin xaafad kastaba South West East-ga North-ka iyo wixii la mid ah dhammaantoodana gacmo buuxa ay isku qabsadaan aan wada shaqeynaa naga go'an annagana sideena bibi banaadir waa la socotaan sidaan ugu sheegay gudoomiyaasha halka dhankayga jooga Cabdullaahi ayaa jooga South West agaasimaha dhalinyarada sportiga youth oo dhankayga jooga aad iyo aad ugu faraxsannahay waana u sheegay bibi banaadir waxay qabato iyo waxay
ay mustaqbalka samayn doonto waana arki doonaa insha allahu waxaanu leeyahay soo dhowaada cid kastoo soomaali dhibanna waa idin saacidaynaa waa idinla joognaa inaan wax idinla qabanno wax alla wixii markaasi muhiim ah oo loo baahan yahay soomaali usoo istaagto taasana aan xoogga saarayna garabkiina taagana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa waxaan inaan kugu daro waxaan ku weydiinaa Mr. Muridi xafiiskan ilaa iyo meeqa furan yahay 6 sanadood ilaa iyo meeqa Soomaali ayaa member ka ah how many kun ayaa member ka ah ilaa iyo hadda roughly 200 kor u dhaafay maxaa diidaya marka dadka Soomaalida ah youthka dhalinyarada in ay maarta member noqdaan oo hadhow si loo yaraan ugu keeno oo san u caawino maxaa diidaya dadkii waalidiinta inay ku baraarugaan sida xabsida dhalinyarada ugu xidhan hadda xalay waxaa dhacday wiil baa soo wacay 9 wiil oo dhalinyaraha Battersea laga xiray maadaama uu dagaal ka dhacay Battersea ciyaal yar Touré lagu dhuftay waxaa dhacday hooyooyin baa soo wacay waxay ku leeyihiin عمر كالي عمر سومالي وين نوع ما فضلا إن كالي نعاون لكن هدي منبر كأهان لهاين إن كمونتي كان مجالية ده حبة كجتا كنت بفضل هدي اللوير أقدر أتوسع من اللوير أوتو محا أرنتاس إن مارتا نوغس وكردين كتا إن وعي قلنت برشاد الصوماليين walaalkay waa run waa wax loo baahan yahay waaye oo loo taagan yahay waaye anagana aad iyo aad u qeyla dhaaminay laakiin dadkii Soomaalidii markay dhibaata arkaan markaas ay soo ordayeen sida walaalkay uu sheegay waa waxaan soo dhaweynaya waaye ummadda Soomaaliyeed ee maqlayana waxaan jeclahay oo North Eastern degan inay gacmo buuxa isu yimaadaan aan wada shaqeyno aan ilmaheena ka saarno dhibaatooyinka maanta ay ku sugan yihiin sida xabsiyada ay ku wada xiran yihiin dhibaatooyin badan ay dareemayaan xataa iskoolaadkooda markii wax laga soo baro wixii lagu hayo ma naqaano tuushino ma haystaan ilmaha oo casharo fiican lagu sii naqayo ma haystaan waan qabnaa xaafadan maayar buu leeyahay maayarkaasina waxaan jecelnahay inaan halkan ka casuulno aan u sheegno waxa Soomaalida u qabanayo iyo waxaan u qabtayna inuu noo faahfaahiyo intaasaan ka sugaynaa haddaan ka waynana annaga waxaan ku dadaalaynaa in annaga maayarkaasi xaafada degan yahay inuusan maayar noo noqonayn maxaa yeelay niman Soomaali wax u qabanin oo dalkan degan iyo ummadda Soomaaliyeed ummadda adduunka ka wadinaya qaxooti ku wada dhulkan عندي وحبا وقوانين كاسينا مدهي كروا ماير حافظ داسي أو عن ساعدينه أما عن قرب سينه مدهينه وحن لنا هاي فضلا ما يروا أنا وحن كارنا مكان كويرنا إن النوع ما دو النوع شكل وحا أقوى الصومالي هذا أنه الصومالي وحا أقوى الصومالي نوع شيء شعب كاجن هو ينكر وحن فريا وفضلا إذا كان إنها فرع نوع ما الصومالي باتيه dadka aqli u saaxiibatihiin warkimaada daa'igeena nasiya waxaan qaban lahayn wixii dhibaato idinka taagan noo sheega ha aan kacno dadkeena aan ilmaheena ka badbaadino dhibaatooyinka maanta haysta aan ka badbaadino bal ha soo iimaano idinkana bal maskaxdeena furo inooda soo fiiriya dadka annaga waxaan waqtigeena oo aan idin gelinayna wax annaga aan dawlad wax la siinaysa ma jiro annaga volunteer ku shaqeynayna waxaan u shaqeynayna waxa waa ilmahayna meesha ku baa ilmahan leenahay annaga barituna marna ilmaha kala dhibaatooyin ku dhacaan ayagana waa filayaan haddaan annaga u soo istaagin maanta ilmahayna aan cabsano walaalayaal oo meelo badan laga qeyliyay anna dadkii qeyliyaan ku jira haddaan u soo istaagnay waqti horena waa u soo istaagnay waanu u sheegaynay waxna maqlana waa iska dhigi tireen laakiin waxaan ka baraynaa inaad u soo istaagtaan fadlan waxaan rabaa gudoomiyaha waxay la taagan South West Mr. Cabdullaahi Carab waa arkaysaa North London Mr. Muridi wuxuu sameeyay xafiiskan yarka haddaan arkayno asaga kareeyay kadib ayuu dadkii maarta ay u yimaadeen marka adigu waxaan kaa codsan lahaa maadaama anaga xafiisaan aan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed ilmaha ka dhibaataysan yihiin annaga inaan xafiis furanno ayaga ina garab galaan si aan hadhow ciyaalkii hadda ninkan odayga wuxuu noo sheegay halkaas waxaa yaala PlayStation asaga jeebkiisa ka soo gaday youthka way imaanayaan halkan ay ku cayaarayaan asaga shaqadiisa kula wataa macnaha dadkii si ciyaalkii aan u soo xareysano meel fiican ugu xareyno gudoomiye Cabdullaahi waxaan kaa codsanayaa in hooyooyinka iyo aabayaasha South West ku dhibaataysan carruurtooda Tourada la dhacay maalba xabsiga la gelinayo hooyooyinkii aabaha maxaad faraysaa inay noo yimaadaan xafiis ay nala furtaan waa haddii annaga aan isreexno ayaa maarta dadka community-ga Ingiriiska la degannahay caawinaya maxaa ku darsanaysaa fadlan tafadal jimco wanaagsan waa ilaahay السلام عليكم ورحمة الله وما سنت عمر سمالوين سيد شرفت له ugu xilqaantay inaa hawshan soo qabanqaabisid maadaama aan nahay South West London waalidiinta iyo asxaabta iyo dadka ku nool South West oo dhan waxaan ka codsan lahaa inay nala shaqeeyaan waxaan rabnaa in future insha Allah inaan xafiis furno marka xafiiskaas aan furnayno waxaa laga rabaa inay waalidiintana taageeraan dhalinyarada taageeraan bahda sportska ina taageeraan
haweenka Soomaalida taageeraan everyone oo South West la degan insha Allah ta'ala waxaan ka codsanaynaa inayna taageeraan si aan xafiiskaas u furno anaguna dadaalkeena wuxuu noqon doonaa insha Allah mid halkaas ka sii socdo aad iyo aad mahadsantiin mar labaad waxaan u mahadcelinayaa Xasan Muriid oo maanta lagu marti qaaday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka soo hadlaynaa North London Holloway waxaan arkaysaan gudoomiyihii South Westiga gudoomiyihii North London oo banaadiriga iyo anigoo ah maarta agaasimaha dhalinyarada sportska UK gacmaha isqabsanayna gacmahan kor wada taagayna waa isla jirnaa waxaan rabnaa inaan noo imaataan ana la jirtaan waxaan wadno waa dadaalkeennii waa dadaalkii dadkeennii waa dadaalkii dhalinyaradeenii waa islaameenna assalaamu calaykum jimco wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu